لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لا لا. asalaamu calaykum. jimicsigu maskaxdu wuxuu noqday dhaqan dunida kusoo kordhaya oo muddooyin dambe aad loo isticmaalo, waxaana jira tababaro kala duwan iyo barnaamijyo arrintaas ku habboon. maskaxdu aadamuhu waa sida jilka oo kale, waxay u baahan tahay jimicsi iyo tababaro ay ku kabacdo, sida ay ku warantay shabakada aljaziira. qoraaga lagu magacaabo elizabeth tabova ayaa maqaal ay dhawaan ku qortay shabakada laga leeyahay dalka ruushka waxay kusoo bandhigtay habab ay sheegtay in ay maskaxdu u noqon karaan jimicsi caawiya in ay habsaami howleedkeeda ay gudato, kuwaasoo ay ka mid yihiin xiraalayaasha maskaxda ka shaqaysiiya, furfurista iyo xal u raadinta xalxiraalayaasha kala duwan, iyo inaad dhisto xisaab ama hadallada maskaxda ugu baahan shaqada. waxay ka mid yihiin jimicsiyada maskaxda bini'aadamka dhisa islamarkaana ku tababaro dhaqso inay u fikirto. sidaa awgeed waxaa fiican in qofku uu maalin kasta 15 daqiiqo ka shaqaysiiyo xalxiraalayaasha noocan ah ee maskaxdiisa. qodobka xiga ayaa wuxuu yahay u fiirsiga badani. wuxuu maskaxda ku abuuraa firfircooni iyo in ay u shaqayso si ka duwan sida ay u shaqayso marka aanay shayga fiiro gaar u lahayn. sidaa awgeed inaad arrimaha qaar si xildheeri ugu fiirsato uguna fikirtaa waa jimicsi u fiican maskaxda. qodobka xiga, cuntada. cuntooyinka aan cunnaa raadad ay kala duwan ayay ku leeyihiin maskaxda. sidaa awgeed waa waajib ah inaad ka dheeraato cuntooyinka caqabad ku noqon kara wareegga dhiigga ama looga cabsado in ay xidhaan xididdada dhiigga. cuntooyinkaasi waxaa ka mid ah cuntooyinka ay ku badan yihiin milixda iyo sokortu. waxaa kaloo ka mid ah dhammaan cuntooyinka kaarbohaydraytka badan iyo dufanta ku jiraan. waxa ay khubaradu kula talinayaan cuntooyinka noocyada kala duwan ee ka kooban kalluunka, beedka, caanaha, badarka, khudaarta iyo malabka in ay ka mid yihiin cuntooyinka joogtada loo cuna, maadaama la ogaaday in ay faa'iido u leeyihiin maskaxda iyo guud ahaan jirka. qodobka xiga, ka sheekaynta sheekooyinka waa nooc ka mid ah jimicsiyada maskaxdu u baahan tahay. ku dadaal inaad u sheekayso si qurux badan oo dareenka dadka soo jiidanaysa, sida dadka ay ku dhagaysanaya ay dhugmo u yeeshaan hadalkaaga. ku dadaal inaad barato xeeladaha kala duwan ee lagu kasban karo dareenka dhagaysiga qofka, taasoo macnaheedu ay yahay sheekada oo kaliya in ay muhiim ahayne, balse sida loo warinayo sheekaduna ay muhiim tahay. qodobkani waa muhiim, laakiin anaga ahaanteena kama maarmano. waa telefishinka. raad taaban ayuu ku leeyahay habsaami u shaqaynta maskaxda. sidaa awgeed waxay khubaradu kula talinayaan in la iska joojiyo daawashada badan ee telefishinka. sidaa awgeed waan ogahay in la joojin karin, balse u yeela waqti khaas ah oo cayiman oo aad ku fiirsanaysid barnaamij khaas ah. qodobka xiga ayaa wuxuu yahay wax akhriska. wax akhriska uu ka mid yahay jimicsiyada maskaxda oo aadamaha dhisa. wuxuu maskaxda ku quudiyaa xogo iyo warar aanay horay u aqoonin, waxaana ku dhiirigeliyaa maskaxdu in ay ka fikirto in ay arrimo kala duwan isu geyso, iskuna daydo waafajintooda iyo gorfayntooda. arrimahaas oo ah qayb yar oo ka mid ah faa'iidooyinka wax akhriska iyo maskaxda ku abuuro firfircooni, korna u qaada habsaami u shaqaynteeda. qodobka xiga ayaa wuxuu yahay xirfado cusub. barashada luqadaha iyo xirfadaha kala duwani waxay maskaxdu u yihiin jimicsi xoojiya awooddeeda xasuusta iyo dhaqso u fikirka, islamarkaana kobciya dhugmadeeda iyo fariidnimadeeda. qodobka ugu dambeeya barnaamijkeena wuxuu noqon doonaa caado bedel. in la bedelo caadooyinka, tusaale ahaan in aad jid kaliya oo maalin kasta aad marin ee jidad kala duwan shaqada iyo guriga aad u martaa. in albaabka hadba gacan ah aad ku furtaa marba hal gacan, iyo guud ahaan in la bedelo caadooyinka nololeedka kala duwan waxay maskaxda ku abuuraan baraarugsanaan iyo in ay yeelato fiiro gaar ah. haddaad ka heshay muuqaalkan la wadaag asxaabtaada. mahadsanid. تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر، تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري.